أمني سياسة عبد الله حسن حتى لو عن كسر دوينا قاسمة حريرك عبد الفتاح علي حسين أو وفدي وزارة أرمها جودان أو صعد وقول حارة معمول سمعت قولها ديجان كجملة بلعت فهذا المفروض يتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. maamulka degmada oo ugu horeeyo gudoomiyaha degmada iyo ku-xigeenadiisa wafdiga ka kala socda wasaaradda oo ay ku jirto agaasimo xanab iyo muxuu ahay madaxda kale odayaasha dhaqanka deegaanka haweenka dhalinyarada iyo ardayda maantan halkan isugu timid waxaa idinku salaamaya iyo macallimiinta waxaa idinku salaamaya salaamka islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan diiran kadib waxaan ka soconnaa annaga wasaaraddii arrimaha gudaha iyo federaalka waxaan imaanay degmadii balcad waxaan kala kulannay soo dhoweyn diiran sida hadda adinkana aad u taagan tihiin qoraxda si lamida meel walba noo laga soo dhoweeyey fariinta aad wadnana waxay tahay inaan sameyno wacyigelin ku saabsan maamul u samaynta degmada balcad reer muxuu ahay garas binto waxay qayb muhiima ka yihiin degmada balcad waxaan wadno waa maamul u samayn wacyigelinteedii oo ah in reer muxuu ahay balcad degmada balcad guud ahaan tuulooyinkeeda 84 tuulo 70 iyo dhowrka tuulo in muxuu ahay ay isu yimaadaan ergooyin ay iska soo doortaan kadibna ay iska soo xulaan 22 xubnood golayaal deegaan 22kaas xubnood ay doorasho sameeyaan gudoomiye ay ku-xigeenadooda ay sameeyaan saasna oo noogu dhismo maamul ay soo doorteen shacabka matali kara kasoo kala jeedo qaybihiisa kala duwan dhalinyarada ay ku jiraan aqoon-yahanada ay ku jirto muxuu ahay naafadii ay ka mid tahay haweenka ay ku jiraan dheergaradkii iyo muxuu ahay odayaashii dhaqanka ay ku jiraan cid walba oo muxuu ahay degmadani joogto oo muxuu ahay muhiim u ah degmadani ay qayb ka tahay maamul dhammaystiran oo ay shacabku soo doorteen wanaagiisa iyo eediisa ay yeelanayaan shacabka laga bilaabo maanta waxaa dhammaatay dowladda federaalka Soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha ay iclaaminaysaa in maamul dambe oo laga soo magacaabo magaalada Muqdisho inuusan idin imaan doonin ee looga fadhiyo maamulka in aad ka doorataan waqtiga oo nahayo iyo qoraxda taagantiin wax badan inaan muxuu ahay isu sheegno waan jeclaan lahayn laakiin waqtiga iyo qoraxda aan taaganahay ayaan suurtagelin waxaan aad ugu faraxsanahay intaan oo arday inay meel isugu yimaadeen Soomaaliya inay leedahay mustaqbal fiican degmada balcad inay leedahay mustaqbal fiican inay u soo baxeen aqoon-yahano mustaqbalka dambe iyo madaxdii dalka aad tihiin saraakiishii ciidamada madaxweynayaashii Soomaaliya dhammaantood inay horteeda ka muuqdaan aaday iyo farxad gelinaysaa waxa aan halkan kala kulannay waxaan gaarsiin doonaa meeshii aan ka imaanay dowladdii qaran oo dhammaan gaarsiin doonaa waxaan gaarsiin doonaa wasaaraddii arrimaha gudaha waxaan gaarsiin doonaa hay-ad walba oo shaqada ku leh hawsha halkan ka socoto waa dareensannahay dhibaatooyinka ka taagan oo muxuu ahay ay ka mid tahay isbitaal la'aantii muxuu ahay xarumihii booliskii iyo nabadgelyadii muxuu ahay oo aanan dayactirnayn tii maamulkii oo aanan dayactirnayn waxaasoo dhan waan ognahay waxaasoo dhanna waxay nooga xiran yihiin inaan samaysano maamul aan leenahay oo aan soo dooranay haddii aan maamulkaa samaysano waxaan helaynaa waxa naga maqan oo idil ay ugu horeyso kaabayaasha bulshada muhiimka u ah adeegyadii bulshada xarumihii dowladdii iskuulaadkii waxbarashadii inaad heshaan iskuul lacag la'aana muxuu ahay waxbarasho sare oo lacag la'aana MCH hooyada iyo dhallaanka lagu kontrolo lacag la'aana isbitaal weyn oo casri ah isbitaalada casriga ee adduunka ka mid ah in laga furo degmadani inay muxuu ahay isku filnaato Soomaaliyana ay horumarkeeda ka qayb qaadataan rabnaa taasi waxaa noo rumayn karo adinka waxaa rumayn kara shacabka Soomaaliyeed ee degan degmada balcad waxaa rumayn kara ardaydiina meeshan joogto haddii hooyooyinkii aabbayaasha aad ka timaadeen fariintan aad gaarsiisaan oo aad dhahdaan aabba iyo hooyo
annaga waxaan rabnaa maamul inaan ku tababarano maamul lasoo dooranayo si beritoola aan annagana aanan u noqonin dad muxuu ahay aanan aqoonin nidaam iyo maamul waxaan rabnaa maanta inaad nagu tababartaan aan idin aragno adinkoo is dooranaysaan rajadayna iyo mustaqbalkiinana siday u hagaagto odayaasha dhaqankana fariintaas mid la midana waan u gudbinaynaa inay naga aqbalaan muxuu ahay horena way nooga aqbaleen haddana waan ka rajaynaynaa fadhigan ama kulanka xigana wuxuu noqon doonaa markii ay cid walbaba ay gaarto habka iyo habraaca loo sameynayo maamul samaynta inaan uga gudubno qaybtii labaad ee maamul samaynta waa mahadsantihiin sida aad noo soo dhaweyseen amniga ka jira degmada guud ahaan aad ayaan